الله ما أنت يا أنت يعيد ونكسن الله ما أنت يا أنت يعيد ونكسن إلهي النسيي السقاك أبالي ويهات يا ما أنت سوى نكسن أعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan joognaa garoonka Wembley Park oo lagu qabanay ciyaarihii Somali Week ee sanadkan markii shanaad ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada Somali Week gudoomiyihii hore Cabdiqaadir Daus iyo Cabdisalaam oo hadda xogeeye ah iyo dhalinyarada kale oo naga shaqeyso oo badan. waxaan ciyaaraha loo qabtaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta laba kooxood ciyaarayso kooxda London Stars iyo Nabadda. hadda ciyaartu waxay maraysaa hal iyo hal. insha Allah waxaan rajeynayaa kooxahan inay ciyaar fiican soo bandhigaan inta uu socon doono ciyaarahan. waxaan la kulmay muxuu ahaa gudoomiyihii hore Somali Week Cabdiqaadir soo dhawow. sidee u aragtaa ciyaarahan wallahi waa ciyaaro la filay inay dhacayaan oo sanad walba dhaco wadankan UK ka dhaco waana sanadkii shanaad ay dhacaan. maxay kaga duwan ciyaaraha oo Soomaalida wadamada kale lagu qabto ciyaarahan wallahi wadamada kale ciyaaraha lagu qabto waxay kaga duwan yihiin ciyaarahan waa aragtaa dadkan uniform kale dhigo marka ciyaarahanna waa kooxii ugu adkaayo aadi jiray Europe dhilo maanta oo u jeeda waxa ciyaarayo London Star iyo Nabadda Stars. saas leedahay kooxda London Stars iyo Nabadda Stars yaa badinayo wallahi lama saadaali karo waa ciyaar aad u adag. ma santahay Cabdisalaam oo xogeeyay waxaan ugu horta barnaamijka soo qabanqaabisay ciyaaraha sanadkan. runtii juhdi badan ayaan gelinay waana garan kartaa Yuusuf oo runtii markii waxa aad qabanqaabinayso hurdada xitaa iban way iska yaraanaysaa laakiin alxamdulillah ilaahay waa noo fududay last night meeting aan galnay after alxamdulillah wax fiican ayaan maanta noo bilowday. maxaa meeqa kooxda ciyaarahan waxaan ka soo qayb galay Yuusuf oo 8 kooxood oo kala ah Manchester, London Star, Nabadda, Hilltop, Juba, Leicester, Blue Ocean and Streatham. maxaa isleedahay meeqa baan la socon doonaa ciyaarahan sanadadii hore waxay socon jireen muddo ka badan 10 days ilaa 14 days waqti aan ku qiyaasnay laakiin sanadkii markii aan meeting ka badan aan wada galnay gudoomiyaha tashi badan oo na dhaxmaray aniga isaga go'aan waxaan ku gaarnay sanadkan in ciyaaraha aan ku soo gabagabeeyay within 1 week gudahooda hal isbuuc oo kaliya. qaabkee loo furmantay ciyaaraha ma nooga sheekan kartaa? qaab jawi aad u fiican ayaan ku bilaabanay jawi aad u fiican ayaan ku furmanay dad magac leh oo Soomaali magac ku lahay ayaan ka soo qayb galeen marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii. waxaan u mahadcelinaynaa Axmed Yare oo barnaamijka soo qabanqaabay waxaan la garoon kula kulmay Xuseen Deeq oo ka tirsan maamulka Somali Week iyo Cabdirashiid Islaw oo isagana maamulka ka tirsan oo guddiga qabanqaabada oo aan dhihi karo raggii aasaasay Somali Week oo muddada ku soo shaqeynayay isla markaana kamid dadka Soomaaliya caawiya sportiga hadii aanad xiriirka kubadda cagta iyo Olombikada kale iyo sportiga wadanka guud ahaan. waxay iga wartaan jawiga maanta ciyaaraha ku bilaadeen Xuseen. بسم الله الرحمن الرحيم. مرت ومدى الصومالية عيد وناكسن كل عام وانتم بخير. runtii jawiga waa jawi aad iyo aad u qurux badan oo runtii aad ma sha Allah oo dad fara badan caruur fara badan aad isku yimaadeen waxaan u maleynayaa nin walba shuruuciisa waa kacsan tahay ilaahayna barnaamijkiisa fiican buu noogu wadaa barnaamijkii runtii de ma koobi karo saad u jeedaan ciyaaraha garoonka ciyaar fiican baa ka socda insha Allah. markii hore waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhammaan bahda sportiga inaan dhaho ciid wanaagsan. waxaa maanta farxad weyn noo ah inay noo furmaan ciyaaraheennii sanadlaha ee Somali Week 2013 ama 2013 waxaad u jeedaan jawiga maanta sidoo waa aad iyo aad waa barnaamij muddo laga soo shaqeynay ana meel dhalkiisa maanta aan joognaa marka waxaan leeyahay ciyaaro fiican maanta noo bilaabmeen jawi fiican noogu bilaabmay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu si fiican noogu dhamaado. waxaan weydiin lahaa ciyaarahan horta oo Somali Week muddo dheer soo jira maalin kasta waxyaabo badan ku soo kordheen sanadka Xuseen aad waxay dadkii kooxihii soo qabanqaabiyay meeqa kooxda ciyaarayaan sida ku soo xishan kooxaha. runtii waa su'aal muhiim ah waan mahadsantahay Yuusuf adigana mahad gaar leedahay ssbamedia.com waa runtii waa waxaan ilaawi karin mar walba u howlan si dhalinyarta Soomaaliyeed u soo shacab bixisay haday noqoto dhinaca orodada runtii haddana ma sha Allah Soomaaliya aad uga macnaheedu aad diiwaan gelisay wiil noo orday Carraale oo caawa jooga Moscow maanta ordayay 4 o'clock marka wallahi najidiris waa sugeynaa runtii maxay ahayd waa badiyay insha Allah marka xigta
waxaa weeye waa 8 kooxood oo runtii ahaa 8 kooxood u ah bayskii ka mid ahaa Somali Week maalmihii la aasaasayay 8 kooxood oo runtii waa nabadda waa London Stars waa Hilltop waa Mowside oo Manchester waa Leicester United oo aydan Leicester Jubba FC Blue Ocean iyo Stratham FC oo runtii ahayd lafdhabar u ah maamulka ama kooxaha Somali Week waana isleeyahay waa kooxaha ugu xoog badan ee ka dhisan maanta Ingiriiska ama UK. وماسنتها إن عبد الرشيد وحكوا دينا ما دام هذه مدح وتاعي جودي فرصة ماذا كوحها سيدة كقريب قلعي محا أو شرعية وديارسين أو شروطها تكون معمولة سنة. horta shuruuc sanaba waxa kaaga kordha maxaa aqoon way argnimo kaaga kordha tartanka intaan qabanaynay xagga sanadkan waxaan aad xoog u saarnay dhinaca maxaa xagga security ama nabadgelyadii marka sida loo geeyay sanadii hadda la soo dhaafay xogaa qaladaad xagga oo laacibiinta ka imaanay iyo kooxaha jireen marka sanadkan waxaan ku dadaalnay inaan dhinacaas aan xoog aan saarno farsamo ahaan shuruucdu way yaalaan oo waa sidoodii laakiin dhinacan ammaanka iyo security qofka xataa amaankiisii laacibka dheelayay ama kooxdii ama macallimiintii ama dadkii fiirsanay ayaan aad ugu dadaalnay marka waxaan qabaa sanadkan inay ka fiicnaan doonaan sanadihii hore haduu ilaa yaraa okay su'aashii ugu dambeysay weydiin waxay tahay meeshan ciyaaraha lagu qabtaa sanad walba sanadka dambeeyo ciyaartooy fiican ka qayb gasho ciyaartooydan oo Soomaaliyeed oo ay kala wadanka matali karaan maxaa qorshe u haysaa maadaama idinka aad xiriirkii Olombikada la shaqeysaan sadii ugu dambeysay la shaqeynayseen Cabdirashiid horta waa su'aal meesha ku jirto cunugii aan aragno oo muxuu ahaa awoodiisii ilaa heer kooxa gaarsiisan waxaan ku saacidnaa horta inuu marka hore kooxihii wadankan ka dhisnaa si uu ku heli lahaa annaga dad badan oo naga mid ah ama macallimiinta kooxaha ka mid ah ayaa waxay access u leeyahay ama contact xiriir fiican waxay leeyihiin niman sportiga xagga oo muxuu ahaa naadiyada dadka u geeyaa annagana haddaan aragna haddaan dhahno alla ilaahay cunugan waa fiican markaan naadi aan u geyna ama awoodiisii aan dhihi karno waxaan ku wargelinaynaa muxuu ahaa sidii caadadna ahayd muxuu ahaa maamulkii markaa sportiga wadanka jiray ama footballka ahaa ayagana waxay siiyaan chance trial ama ay ugu wacaan ay dhahan cunugii aad noo soo dirteen la soo diro markay arkaan awoodiisa markay gaarsiisan tahay ayaga automatically macallimiina u joogo way qaataan oo markaas meeshii uu ku haboon yahay ayagii hadduu qaran ku haboon yahay qarankii u safaan haddii kalena waxa weeye fikir kale siiyaan oo waxyaalaha ka dhiman fitness levelkiisa ka soo dhisaan dan markaas waxa la dhahaa kooxo markaa si uu ku raasay si CV-giisa xataa ugu fiicnaado marka annaga nin alla cunugan aragna awoodiisa heerkaas gaarsiisan tahay aan alla ilaahay aan dhahno waa kuwa wargelinaa waxa wadankan ku wargelinaa si asana jaanis loo siiyo oo u matali lahaa wadankiisa xuseen waxa ku weydiinayaa in labadii sano ugu dambeysay ama 3 sano ugu dambeysay koox football ka xeynaysa oo wadamada Carabta ka qayb galayaan oo run ahaantii dhigay ciyaartooyda oo Somali Week ciyaarto ugu badan yihiin kooxaha ciyaaro haddana ciyaarta socoto London Stars iyo nabadda kooxda oo ah dhigay kooxaha ugu badan wadamada Yurub Soomaalida ugu awood badan dil kooxaha jaaliyada joogto maxaa damacsan sanadkan بسم الله الرحمن الرحيم horta runtii waa muhiim Somali Week runtii waxay dhalisay Somali International Development oo dhalinyarta sportiga internationalka runtii wadamada la aadayo waxyaabo fara badan ay ka soo kordhay soo walaalka sheegay slow haddaan taabto wadankan Kuwait aan tagno kale nin laacib oo koox Carab u dheelay oo Soomaaliya ayaa fursad wuxuu helay inuu wadankiisa Soomaaliya Maxamed Xiriiri runtii nin laacib ah uu dheelo qaranka Soomaaliya waxaan u maleynayaa haddaanan maartay Carab la tagleen inuu de wadankiisa qaranka Soomaaliyeed inuu u dheelayn taana waxay ku tusaysaa wada shaqeynta naga dhaxaysa annaga iyo xiriirka Soomaaliya ama haddii noqoto football federation ama haddii noqoto Olympicada haddana waxa nagu soo socota badoo la yiraahdo waxyaabo fara badan oo ka waaweyn haddii noqoto African Gameski haddii noqoto Islamic Gameski iyo Arab Gameski ilaa iyo 2016 Rio de Janeiro marka kullee insha Allah taala annaga haddaan nahay bahada Somali Week ama bahada Soomaaliyeed ee degan wadankan UK waa naga go'an tahay kii wanaagsanaada ee wadankiisa inaan u hirgelino ama soo qayb gal lahaa marka fursad aan u helaba haddii noqoto dhaqaale haddii noqoto tartan haddii noqoto training iyo qalab inaan ku taageerno waa naga go'an tahay insha Allah taala assalamu alaykum بسم الله waxaan garoonka kula kulmay gudoomiyaha sanadkan Somali Week mudane Cabdi Ahmed run ahaantii sanadkan shaqo fiican qabtay oo maanta ciyaarihii waa furmeen Cabdi shucuurtaada maanta maxay dareemaysaa والله بسم الله الرحمن الرحيم شعورتي maanta waxay dareemaysaa 4 sano hore la soo dhaafay wixii la qaban jiray wax la mid ah qurux badan aan qabanay sanadkan oo ah 2013ka maanta ciyaaraha waxa u maleysaa maalinta ka dambeysay inay ciyaarihii
dadka ay aad u soo badanayaan maasha allah maanta dad badan oo lejan ah Soomaali intii dhameed oo deganeed London kulli waa iskugu keenay Somali Week tartanka muddo dheer oo soo socday waxaan dhihi karaa tartanka Soomaalida ugu caansan oo wadamada Yurub inuu kamid yahay sanadkan waxaan arkay dad oo siyaasiyiin ka soo qayb galeen sidii sanadii hore oo kale dad fanaaniin ka soo qayb galeen dad culimo ka soo qayb galeen dhalinyaro ka soo qayb gashay haween sport barnaamijkan muddo inta laga soo diyaarinaysid والله barnaamijka waxaa soo diyaarinay sanadkan dhan waxaan ka shaqeynaynay sanadka hore sidii aan u soo celin lahayn bilicdii Somali Week iyo waxqabadkeedii hore oo lagu yaqaanay iyo taariikh nololeedkii 4 sano la soo dhaafay waxyaalihii la qabtay inaan sanadkan 2030 wax ka qurxoon ama wax ka duwan aan sameeyno waana insha Allah waana suuragali doontaa waxayna u badan tahayba waan arki doonaa dadweynaha Soomaaliyeed wax ay ku farxaan amaanta sameeynay qof walba Soomaaliya maanta wuxuu leeyahay ciyaarihii la yaqaanay oo Soomaaliga lagu yaqaanay gudoomiye waa soo noqdeen waana ku mahadsantiin sideed kooxood ka qayb galay ciyaarahan meeqa maalin ciyaarahan socon doonaan inta lagu qaban doonaa faahfaahin naga sii ciyaaraha waxay socon doonaan 7 bari sideed kooxood ka soo qayb sideed kooxna waa sideed kooxood London ugu adag aan dhihi karna waa champions tiimka ugu adag oo champions ka waaye hadii laga soo qaado koox ciyaarta maanta ugu horeysa la dhiilay waa waaye London Star iyo waxa dhiiloohaya nabadda London Star iyo nabadda waa macallimiin waaweyn oo laga yaqaan London oo caan ku ah waa macallin Calimire oo iyo macallin Daar Gacmi oo sida Sir Alex camal oo ciyaaraha ritay ka sameeyay oo kor u saaran iyo Calimire oo macallin cusub nabadda oo aad taqaaniin macallinka weynaay Bob oo lejan oo haddana macallinka sanadahan ciyaaraha u wada Kuwait oo looga dambeeyo oo ciyaartoydana xolo labadaas koox waxaan ku diinayaa su'aal muhiim ah ciyaaraha waxay socon doonaan muddo week ah waxa ka qayb galaya kooxo adag oo dhiga kale ciyaartooyda ugu adkeed wadankan degan dad badan oo sportiga maamulaya way yimaadeen dadkii basketballkana waa arkay iyagoo meesha joogan oo macallinkii qaranka iyo xogayaha oo kale oo joogay iyo dad badan oo sportiga ku soo jiray oo Soomaali bartamaadkii ciyaartooydan waa Soomaali wadanka Soomaaliyeena kubadda cagta run ahaantii sanadii ugu dambeysay aad ay u liiteen markaan fiiriyo israabiyada Afrika ma laga yaabaa inaad ku caawisaan xulka qaranka Soomaaliya oo kale ama kooxaha ka dhisan Soomaaliya oo ka qayb galay ciyaaraha bariga bartamaha Afrika oo u gudbisaan ciyaartooydan ku aragtay kale والله هرتر أنا جا ملا حرير كنين كمية إنه قيمة فرصمة أو جوا عبد الرشيد إسلام أو نوقع بس قيمة فرصمة أو نوقع بس حرير كعيارة كوبات عكتا وجوا قاصة لندن إسلام كله يبغى كمان مقنا جودي جنو وكجرا وانين آدي آد عيارة حرفت كله إن مدنا كسو شقينا عيارها سيدا حبك عيارتويد لو كلا حلو يقاننا كل يبا إن وحلاقة شكل ما عبد الرزاق إسلام أفراد تكسر عقود الجراء سبورتي سويدن هدين كندا هدين ملك استوطنا أروريا عيارتويد في عن أنا جنا وحاهيلي هوب ولا تاجنا إن كوكال منه وهي عيارتوي قرحان أو في عن إن أو شغل إن سؤال شو قدام سكودنا حتى عيارها إن محا نقالة يقبح وحبها يعني نقالة هدي أهل هاد جرامدا هدي أهل هاد أربيترياش وكله أبني وكله إن ذلك إيمانا وكله ميديا وكله تقالها أو عيارها كوكا يتخصص قشتين يصير تجري إن عيارها قبتان dhaqaalaha laba arin waayba arrimaha in la kala qaado fiican horta dhaqaalaha ugu xoog badan oo sanadkan lagu taakuleeyay waa macallin caan oo Soomaalida dhan taqaano waa macallinka kubadda kolayga Cabdiraxmaan Shiine Guhaad waa nin ma sha Allah garoonkan asaa naga bixiya lacagihiisa ugu awood badan waxa kale oo haddana aad iyo aad asdheena waxa ka helaysiin ganacsatada Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahayn mar walba carruurta Soomaaliyeed inay ku taakuleeyaan special wili kuwana taakuleema kuwa oo naga maqan oo wadanka ku nool oo si aad iyo aadna wax u haystaan waxaan jeclaan lahayn inay nagu taageeraan ama na kaalmeeyaan waxaan ciyaalkan xabsiyada ka ilaalinayna hawsha u qabanayna inay wax nagu siiyaan walaalaheen marka u tagtid waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay kugu qoslaan ay ku dhahan sport ma wax u raadinaysaa maalinta wax la cunaa leeyahay ma aha saas Soomaalidu waxay u baahan tahay in garbo dawladda Soomaaliyeed bataakuleen oo baad sidii dawladda Soomaaliyeed sportiga u yahay saas oo kale waa in la taakulay waa jeclaan lahayn waxaan intaas ugu dardaan iga dadka ganacsatada inay caawinaan carruurta yararka oo xabsiyada aan ka ilaalinayna sida sportiga wax ugu qaban adoo ka faa'iideysan fursadan waraysiga aan kula yeelanay SB Media maxaad dadka Soomaalida iyo dadkii oo ciyaarahan ka soo qayb galay Afrika waxaan uga mahad celinaynaa waqtigooda qaaliga ah ee noo soo dhumiyeen
dadkan walaalaheena special dadka oo siyaasadiinta ah dadka xildhibaanada ah dadka oo ciyaartooyda hore ah odayaasha wadaadada oo ayagana ay waqtigooda ku dhumiyeen inay ilmahan u wacdiyaan ama wax u sheegaan sidii baarimaadkii oo annaga noola soo tarbiyeyey marka waxaan jeclaa waalidiinta ka soo qayb gashay dumarka ka soo qayb galay hooyooyinka ka soo qayb galo ayagana oo ilmahooda fiirsanayeen aabbayaasha ka soo qayb galay kulliga waa in mahadcelinaa waxaan leeyahay jazaakallaahu ciid mubaarak waa mahadsan tahay barnaamijkeennii oo aan ku wareysanayna maamulka Somali Week anigoo ah Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf tafatiraha website-ka SSB Media iyo Maxamed Cumar oo ah tafatiraha website-ka Somali Nimo oo barnaamijkan soo sameynay waa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.